السلام عليكم صاحبيال ku soo dhawaada barkooletiin Cabdulle Mansuuri waxaan rajaynayaa dhamaantiin beenad waanaan iyo wanaag aad ku wada sugantiin muuqaalkeennii hore waxa iga soo noqday faalooyin aad u fara badan kaasoo ah inaynu joogteeno isla markaana in badan isla wadaagno muuqaalada iyo mawaadiicda runtii furan ee si furan in wada sheekaysano inagoo markaa ka baxana qaabkii qodobaynta iyo qaabkii kala duwanaayay markaa aynu u soo timin jirnay muuqaaladeennii hore dabcan marka qaar insha Allah waynu sameyn doonaa wixii dorfaynaya buugaari waxyaabaha la midka ah waxaan ku sameyn doonaa qaabkii hore aynu sameyn doonaa laakiin maanta muuqaalkan aan duubi doono wuxuu la mid noqon doonaa muuqaalkii hore aynu soo duubnay ayuu la mid noqon doonaa isla markaana waxaan ku sheekaysan doonaa ama isku la wadaagi doonaa mowduuc runtii aad u qiimo badan aadna muhiim u ah dhowr maalmood maynaan wax soo duubin taasina waxay ahayd ciidii iyo hawla runtiista imaaday taasoo markaa keenaysa in xogaa channelkii meesha ka baxo marka insha Allah waan joogteyn doonaa usbuuciiba haddii ugu badnaato yani 3 muuqaal ama 2 muuqaal ba insha Allah soo gelin doonaa haddii ay beed maayo soo dhawaada mar kale daawasho wanaagsan maanta muuqaalkan isla wadaagi doonaa waxa uu noqon doonaa waxaan kaga sheekaysan doonaa isla markaana isku weydiin doonaa runtii mowduuc runtii aad u qiimo badan mowduucaas waxa weeyaan waa maxay xiriirka ka dhaxeeya wax akhriska iyo fikirka yani sidee ay isku saameeyaan ma jirtaa cilaaqa ka dhaxaysa labadooda fikirka iyo markaa wax akhriska ma oran karnaa qofku hadduu wax akhriyo waxa uu noqon karayaa mufakir si toos ah mise waxa jirta waxyaabo kale oo wax akhriska caawiya kuwaasoo markaa qofka ka dhigay markaa inuu mufakir noqdo mise waxaan oran karnaa aslanba wax alaale wax xiriir oo ka dhaxeeya haba yaraatee akhriska iyo qofku inuu mufakir noqdo ma jirto haddaynu si kale isku weydiino ama dhinaca kale ka istaagno qofku inuu mufakir noqdo oo qof fikira oo bulshadiisa u fikira oo dadkiisa u fikira inuu noqdo isla markaana hal abuuro ah oo afkaarta dhaliya inuu noqdo ma wax loo dhashaa mise waa wax qofku markaa isbari karayo oo markaa caado qofku isbari karayo ama dhaqan ama yani xirfad qofku isbari karayo ay noqon karaysaa waa su'aalo runtii aad u weyn waana su'aalo loo baahan yahay inaan ka jawaabno isla markaana aynu wax iska weydiino si aynu u ogaano qofka mufakirka waa sidee ayaanu ku imaadaa bulshadeena marka la joogo waxaa jira dad fara badan oo kala duwan oo aqoon-yahano ah kuwaasoo markaa aqoomo fara badan oo kala duwan yani kasoo qalinjabiyey soo bartay soo kale yaqaano luuqado fara badan oo kala duwan ama ha ku soo bartaan aqoontooda ama markaa ha noqoto markaa mid ay caadi u yaqaanaan hadday noqoto turkiga yani luqadda ruushka hadday noqoto luqadda ingiliishta iyo luqadaha kale fara badan ee kala duwanba ama caadi ha u yaqaanaan luqadaha ama ha noqoto markaa mid ay wax ku soo barteen oo markaa aqoonta ku soo barteen ama ha noqoto mid iyagu ay markaa wax ku dhigaan oo markaa aqoonahaas yani meelaha ay joogaan dad wax ku dhiga oo markaa macallimiinka ah haba noqdaanbe dadka noocaasa ma oran karnaa yani dadka qaar ka mid ah waa muthaqafiin yani waa dad yani aqoon-yahan ah ama dad mufakiriin ma oran karnaa inay yihiin يعني سيما كنت المامي كرنا سجور ما أينو أوران كرنا قفك فيلسوف قفك مفكر قفك أقوياء عنك طبعا سؤال فربنا بدي ودي سؤالها سنة حنقول شيء ده إنه حس ويدينه أو مركب الوحي إنه صباح أنت إنه شيله إسلام مركب إنه سويدينه يعني مركب إنه نتيجة في يعني كسوس صاروا هذا ما هدين سويدينه أما إنه ينركب فكرنا وام حي يعني حيل كده حياة أما يعني وحيابها يكون كل دويهين قفك إنه مفكر نقضه iyo qofku inuu filosof noqdo iyo inuu muthaqaf noqdo yani saddexda terminology ama saddexda eray bixin maxay ku kala duwan yihiin si guud markaan u eegno waa saddex eray bixin oo yani si guud ka siman ama waxyaabaha ay ka siman yihiin yani ay ka badan yihiin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin yani filosofku waa qofka ugu martabada sareeya labada kale marka loo eego yani ugu martabada sareeya weeyaan qofka filosofku waa qof u fikira yani u dhaliya aragtiyaha sunanta iyo markaa yani nadariyaadka kala duwan u dhaliya yani qaab guud u dhaliya yani qaab insaanka oo dhan saameynaya ma uma dhaliyo yani mid waqti kooban iyo waaqac kooban iyo bulsho kooban markaa munaasib ku ah ma dhaliyo isagu kaliya wuxuu u fikiraa qaab guud oo ballaaran buu u fikiraa taasoo markaa saameynaysa yani bulshada oo dhan iyo dadka oo dhan iyo ummadda oo dhan iyo caalamka oo dhan markaa saameynaysa ayuu u fikiraa marka waa qof يعني aragtiyuhu dhaliyo la sii taxliiliyo hadhow la sii faaqido laga soo saaro markaa aragtiyo ka duwan kuwii markaa uu soo lahaa ama qaar markaa sii anfacaya bulshadii gaarka ahayd ee meel ku nooleed ama bulshadii xilli gaar ah nooleed sii anfacaya laakiin markaan u imano qofka mufakirka ahi waxa uu ka martabad hooseeya qofka filosofka ah si uu martabad hooseeya qofka mufakirka ahi waxa uu ka fikiraa isla markaana aragtiyihiisa iyo yani fikradiisa uu ku beeriyaa bulsho kooban oo markaa uu la nool yahay ama waaqic markaa uu nool yahay yani waaqic iyo xilliga uu nool yahay ama bulshada markaa uu la nool yahay ayuu aragtiyihiisa iyo afkaartiisa uu in badan markaa ku bixiya saadaradeed yani waa aqallu tajriid buu ayay yiraahdaan yani qaabka uu u fikirayo
ayaa waxay ka hooseysaa yani qaabka qofkii markaa filosoofka u fikiraya waana ta in u baahanay maanta inagu qof yani si guud oo caalamka oo dhan u fikira uma baahnin yani aqoon-yahanadeena iyo dadka markaa yani aqoonta u saaxiibka ah maanta inaga yani Soomaali ka dhashayba uma baahnin inay duni kale ka fikiraan inay aragtiyo guud ay dhaliyaan uma baahnin inay jaamacada wax yani u taraan kale uma baahnin waxaan u baahanay waxa weeyaan in ay xaliyaan waaqicaynu maanta ku noolahay Soomaaliya ku nooshahay iyo markaa bulshadoodu waaqicay ku nool yihiin inay xaliyaan baa loo baahay waana taruntii asalka ee aad u muhiimka taa guud waxa xalin karaya isla markaana u tagi karaya afkaarna ka dhalin karaya oo qofka marka koobaad xaliya yani bulshadiisa iyo waaqic oo markaa ku nool yahay dhibaatooyinka ay ku jiraan yani qofka wax ka xaliya ayaa markaa u gudbi karaya markaa inuu qaab guud oo caalamka oo u fikiro sadaradeed waxay yiraahdaan qaacida ay yiraahdaan oo al-jamiic yafakir fi taghyir al-aalam ولكن ما حد يفكر في تغيير نفسه يعني ما احد laga wado dadka oo dhan laakiin yani dadka oo dhan waxay ka fikiraan in dunida ay wax ka bedelaan laakiin ma jiro qof ka fikiraya inuu naftiisa wax ka bedelo haddana inuu bulshadiisa wax ka bedelo laakiin qofku wuxuu leeyahay caalamka oo dhan wax ku soo kordhi marka waxa muhiim ah qofku naftiisa inuu ka bilaabo bulshadiisa ku xilsiyo kadibna marka caalamka marka uu gudbo si uu kala sareeyaan oo marka uu bilaabo laakiin hadda xaggii sare ka soo bilowdo oo naftaada iyo bulshadaada iyo dadka dib aad ilowdo marka waa ka baxaysaa meesha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dariiqadii uu raacay waxay ahayd wa anzir ashiratka al-aqrabin yani aqrabadii dadka u dhow waaya ashiradiisa ay ku horeysay aqrabadiisa ku xusiyay kadibna bulshadii kale marka ayuu diinta daarsiyay marka fariin walba la qaadayo iyo wax kasto la saxayo waa inay ka bilaamato adiga kadibna ay kugu xisiisaa cid kugu dhow saa marka ayuu sii socotaa ilaa marka halka ugu wanaagsan ay ka gaadhiso qofka hadaba musaqafka maxaan oran karnaa musaqafku waa qof aqoonaha kala duwan ee jira ama aqoonta kala duwan ee jirta yani waxyaabo kala duwan ka qaatay yani aqoon walba yani wax ka darsaday ama yani waadaan furitay aqoon fara badan haya yani marka meel ama golo la soo fadhiisto waxyaabo fara badan oo kala duwan ka sheekayn karaya ka hadli karaya isla markaana afkaar laftiisu dhalin karaya oo wax ku darsan karaya yani afkaar jirtayna taxliilin karaya oo wax ka soo saari karaya weeyaan yani laakiin qofka ugu sareeyo waa filosofka oo si guud u fikiraya marka waxay in saddexduba ku kala duwan yihiin waxa weeyaan waa qaabka loo fikirayo iyo yani marxaladda lagu fikirayo iyo marka jawiga lagu fikirayo ay kala duwan yihiin laakiin wax fara badan oo kala kala duwana inta marka ka imano waxaan is weydiin karnaa yani qofku inuu aqoon kasbado saddexda kala duwan aan soo sheegnay qofku mufakir hadduu noqdo hadduu filosof noqdo hadduu marka noqdo qof marka yani muthaqafa intaba waxa base u ah waa aqoon aqoontana waxa ugu horeeya lagu helo waa maxay waa wax akhris sadar Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم مرنا waxa lagu xiray subhanahu wa ta'ala yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala yani ayaa lagu xiray oo ismi Allah baa lagu xiray marna waxa lagu xiray marka karamullah baa lagu xiray marka waxaan dareemanaa qiraa'ada muhiimada ay leedahay baan dareemanaa yani lagama wado akhriska oo kaliya lagama wado laakiin xataa waxa jira qiraa'o kawniya jirta yani inuu qofku akhriyo yani qaabka dabiicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala kownkan uu abuuray qaabka u taalay inuu qofku akhristo isla markaana uu garto isla markaana yaqiinsado in waxan maanta dhacaya iyo qaabka waxan u dhacayaan iyo yani roobka soo daadanaya nabaadka soo baxaya yani qaabkan jawiyadu isku bedelayaan summer loo galiyo winter loo galiyo iyo yani waxa kownka ka dhacayo oo dhan inaanay ahayn wax bili aadan gacantiisa ku samayn karayo wax bili aadan maamuli karayo wax bili aadan shaqo ku leeyahay inaanay ahayn marka qofku marka u fiirsado isla markaana uu ogaado inay jirto awood ka sarreysan marka bili aadanka oo dhan isla markaana xaqiiqi ah taasoo marka kownkan oo dhan maamulaysa qaab wanaagsan ayuu loo maamulayo يعني marka eegno qaabka dunida marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u sameeyay in waxaan arkaynaa qaab yani maamul iyo kala dambeyn leh in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u sameeyay hadii wax yar is khilaafaan inayna ku dhexnoonaan kareebin oo soonahay sadaradeeda waxa jirta xataa marka qiraa'o kawniya ma aha qiraa'ada oo kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka yani ereyga qiraa'o waa erey runtii aad u ballaaran oo dhinacyo badan oo kala duwan loo qaadi karayo muhiimadda uu leeyahay in marka dhamaanteed u soonahay sadaradeed yani qiraa'o la'aan lama helayo aqoon la'aana lama helayo marka qofku inuu mufakir noqdo ama cid mufakira soo bixi mayso cid mufakirana fakir karamaysa hadaan waaqic iyo marka bulsho marka wax ka qaadanaysa isla markaana uu ku dhex fikiri karayo aanu haysan su'aal ma marka dhacaysa in la isweydiiyo taasoo oranaysa yani qofka mufakirka ah suurtagal ma tahay mar walba in ay u hirgasho fikradiisu ama yani qof bulshadiisa wax u tari karaya mar walba noqon karaya oo afkaarta uu dajiyay aragtiyaha marka uu keeno ay noqon karayaan qaar hirgala oo bulshadiisa iyo dadkiisu marka ay qaataan waxay dhaadaan yani aqoonyahanka weyn ee Noam Chomsky waxa uu yiraahdaa qoraa ama oranaysay al-muthaqaf huwa man hamala fikrahu biquwwa yani muthaqafku ama qofka mufakirka dabcan waa qofka yani aragtidiisa si awood ku qaada yani si awood ku hirgaliya طبعا اول ku hirgaliya waxa ka wadnaa juhdi fara badan yani tamar fara badan ku bixiya si aragtidiisu ay u meel mari lahayd ama buug ku gudbiyo ama qaab kale ku gudbiyo laakiin qof aragtidiisa inuu meel mariyo yani ka dhabtahay waa inuu markaa qofkaasi noqdaa
يعني انت ku kala duwan yihiin qofka mufakirka iyo qofka mutaqafka dabcan marka la eegayo xagga bulshada la falgelidana waxa ku kala duwan waxa weeyaan qofka mutaqafka ahi waxa uu aad uga fikiraa ama juhdi fara badan uu galiyaa yani aragtiyo jiray iyo doodo jiray iyo marka macrifo iyo aqoon jirtay inuu marka faaqido يعني تحليل ku sameeyo analyze ku sameeyo kadibna bulshada marka uu soo gudbiyo qaab marka isagoo xaq ku taageeraya yani qaab wanaagsan marka uu u hadlaya inuu marka sida uu soo gudbiyo laakiin qofka mufakirka isaga laftigiisa ayaa dhalinaya marka maxay aragtiga dhalinaya sunan dhalinaya yani waxyaabo fara badan marka bulshada iyo dadka marka wax taraya oo marka cusub isaga ayaa dhalinaya oo wax la yaaba mushtaridii buu soo qaadaya kadibna xuluushii buu marka keenaya kadibna dhexdooda wuxuu ka dhalinaya marka aragti bulshada ay ku dhaqmi karayso taasoo marka ka caawinaysa in marka dhibaatooyin fara badan oo kala duwan oo marka meesha ka jiray ama goobta ka jiray in marka si fiican loo xaliyo marka waa muhiim in marka qofka mufakirka ay aragtida uu soo jeedinayo ay noqoto marka aragti hirgasho isla markaana uu juhdi fara badan geliyo si aragtiyaas ay u hirgal lahaayeen marka ku soo noqono deegaanka aqoonta ana bulshooyinka waxay soo saaraan ama bulshooyinka dadka ay soo saaraan ee waxbarasho ay ku soo saaraan ayuu baa noqda dad mufakiriin ah oo marka yani hirgala oo yani afkaaraha ay soo gudbiyaan iyo waxyaabaha ay soo tabiyaan qaar marka suurtagal noqda ama waxay soo saaraan mufakiriin qaab qaldan u shaqeeya ama bulsho kale su'aal adeegsato ama qaab marka aan wanaagsan ugu fikira ama waxbay soo saaraan dad caadiyiin ama mutacallimiin caadiyiin wax loo yaqaan ay soo saaraan deegaanka waxbarashadu deegaan u habaysan ama u diyaarsan ma yahay dad mufakiriin inuu soo saaro mise wuxuu u diyaarsan inuu soo saaro marka dad wax bartay in la yiraahdo yani qofkaasi yani primary buu ka baxay secondary buu ka baxay kadibna jaamacad buu ka baxay halkaas uu marka darajada ugu sareysay doctorate ku gaaray maantana waxaan ogsoonahay doctorate يعني waxyaabaha xarafka daal yani aad baa loo isticmaalaa yani waxa uu noqday yani laqab cid walba marka isticmaali kara samaanta haddana wax laga yaabaa qof doctor sheeganaya ama PhD sheeganaya haddii la fadhiisto maanta inaan wax badan soo saari karin ama wax badan keeni karin waxa la sabab dhigaa wadanka Masar iyo wadanka marka Canada waxa dhadan Canada qofku markuu Manchester gaaro waa suuqa amal buu galaa shaqadu galaa shaqo waxa marka uu iska shaqaysta iyo roobaba marka dad yani mutaqafiin oo marka mufakiriin ah noqdo marka وكا مصر نوحي لأن ضدك يعني الدكتوراه من PhD ستة أيام أفر بدن يعني حتى إنما قف والله مرتبة إنه مركز يقول لي هي قف وير ماجستير بن ستة أما الله ماجستير بن ستة كتلو يقول لي مركز PhD بعرف أنت أصلا PhD أوكي دول ومركز برشدة كنولي وحي أودي واين أما يعني ديجان كود أسامح واين إن أفكار أي دليان أما أفكار تدليان أي قاس صورة جل إنه قويده in yaroo kooban oo marka yani Canada marka ka hirgashay waxay noqotay in marka afkaarta iyo aragtiyaha ay keenayaan bulshadooda yani marka wadankooda iyo dadkooda ay wax ka bedesho marka dhibaatadu marka marna waxay noqon kartaa mufakiriinta laftirkooda marna waxay noqon kartaa deegaanka marka iyo bulshada ay noqon kartaa yani mid ay waxba ka hirgalayeen noqoto saadareed waxa la yiraahdaa yani marka qaar waxa dhacaysa in qofka madaxweyne ah iyo bulshadiisu ay kala aragti noqdaan walaal madaxweynaha ayaa aragti sareynaya bulshaduna way ka aragti hooseynaysaa kadibna isma fahmayaan aragtida wax walba saada hedeli waxay u arkayaan wax hoose ay u arkayaan ama wax aan laga mudan yahay buu arkayaan kadibna khilaaf waxa ka imanaya bulshada way ku kacaysaa midkan meelahu arkaya iyo qaabka uu tacaamulayo iyo waxyaabo uu arkayo yani ma qaab ay fahmi karayaan ma aha isaguna ma soo wada bandhigi karayo amn qowmi wax laga jira national security baa jira oo wax walba ma soo bandhigi karayo talaabo walba dawladdu qaadayso maanta la soo bandhigo waa fashil dawladeed weeyaan marka waxyaabo fara badan in la fahmo oo qaab sikrad ah loo sameeyo weeyaan bulshada wax laga yaabaa inay yani qaab qaldan u aragto marka laga hor imaado oo marka qofkii marka bulshada dhan hagi lahaba meesha laga saaro marna waxa dhacda in qofka madaxweynaha ah ama qofka hoggaanka ah iyo marka uu noqdo qof aragtiyiisu ay aad u hooseeyaan laakiin bulshada thaqaafadoodii iyo aqoontoodii marka ay aad u sareyso maxaa marka dhacaysa in wax kastoo isaada qabo iyo hawlihii uu qabanayo uu arka hawlo aad u qiimo badan wax wanaagsan uu arko laakiin bulshada inuu wax qabtay aan u arkin imisa taasi nagu dhacday qof yani hoggaan ah oo isla waxyaabo fiican baad qabatay waxyaabo fiican baad ka hadashay hawlo fara badan baad qabatay laakiin wax allaale wuxuu qabtay marka caadi aan u eegno aanay jirin qaabka isagu u fikiraya qaabka bulshada yani thaqaafadoodii heerka ay taagan u fikirayso ayaa kala duwan marka yani xataa waxa laga fikiraa ama mufakiriintu ay ka fikiraan sababtan waaqic aan u leeyahay waxa weeyaan waaqicu waxa jira fikrad la jaan qaadaysa maanta يعني أفكار يا نظريات الجودة يشري قف كفيلسوف كوداليو سيدا معك ودك أي وش شقينسو هي سيدا معك ودك إنه وحدة أي وش شقينسو اسمه مد معه واقع بين كل دون هاي منشأهم بكل دون هاي تاريخهم بكل دون هاي مركا وإن لهلا مد يعني إنك تاريخ دينا دقن كينا دين تينا يعني وحاول فربنا مركا مناسب لأه إن مركا إنه هلو مشكلة دمانته إنها هيستعدي من لمد أي هيستون ميل كله وإن أنا توص أيضا أسوق على أفكار تي أرتي مركا أيج وحكو حلية لكن وين السوق هذا وحي أن كبدل كرنا مركا أن كبدله شقدا يا قبنية قف مفكر أهبا قبنية أما قف أقوية هنا أبا قبنية
mararka qaar waxaa laga fikiraa ama dadka aqoon-yahanada ee markaa ama Afrika ay dhaadaba ay aad uga fikiraan isla markaana ku doodaan nalama taageero yani maanta ninka aqoon-yahanka Euro ama reer galbeed jooga meel baa la fadhiisinayaa yani maqsad gaar ah buu leeyahay iminka jaamacadda hadda aan joogo yani waxaad arkaysaa professor walba yani darajaad kala duwan baa leeyahay qofka markuu PhD qaato dhowr article publish gareeyo wuxuu noqdaa associate yani assistant buu noqdaa associate baa ku xiga 40 article markuu publish gareeyo associate buu noqdaa kadib markaa professor buu sii noqdaa kadib uu markaa kasii gudbaa wadankii inta joogay hal macallin oo hal qol oo gaar ah lan weliga ma arkin يعني لما bachelor markuu soo dhigtay wadankii hal qof oo markaa yani ama hal macallin ama hal PhD hatta waqti sii fadhiisanaya ma arkin macallin walba markuu saa wixii yani u dhigay xiisadiisa hor uga sii baxa laana qof shaqaysanaya weeyaan laakiin ragga halkan jooga ama dad badan oo halkan jooga macallimiina wadanka jooga dabcan waa Pakistan waxaad arkaysaa macallin walba xafiis gaar ah buu leeyahay waad ugu tagaysaa article u qoraya waxba publish gareynaya طبعا هذا ماجستير بن وضع ماجستير كان وضع وحن لا وضع ارتكل كان وضع انينا waa ii faa'iido isaga macalkana waa u faa'iido yani isagii bulshadu wax soo kordhiyay oo article kaas waa article maanta Pakistan iyo hawlaheeda wixii ka hadlaya isagiina yani creditkiisa u gashay oo waxa darajadiisa ba kor u kacaysa dhibaatooyinka ardayda iyo macallimiinta markaas professorada oo ah waxyaabaha ka dhaca waxa kamid ah tusaalahan hadaan inta ay dhex geliyo waxaad arkaysaa macallin doonaya inuu darajadiisa sare gaaro yani tusaalahan associate assistant buu ahaa associate buu doonaya inuu gaaro wuxuu doonaya ilaa 40 article markaa inuu qoro qofkiisa professorka uu ahaa tusaalahan ardayda PhD oo kale lagama ogolaado qofkiisa inuu difacdo PhD ilaa markaa uu articles qoro marka wuxuu ku oranayaa articlada ii qor ilaa markaa aan kuma ogolanay haddii kale inaad difacto buu gaari waa inaad markaa articlada ii qortaa hawlahan adii qabataa kadib aad markaa gudbisaa inaad markaa wax difacto waxyaabaha quraan iyo articlada ay quraan iyo waxyaabaha markaa publish ku sameeyaan ama ay soo tabiyaan waa waxa runtii la adeegsado yani isla markaana wadanka iyo markaa bulshadu ay aad uga faa'iideysato haddii research loo sii isticmaalayo iyo haddii markaa yani dawladdu si toos ah u isticmaalayso aad baa loo isticmaalaa waxyaabaha kale cajiibka waxa kamid ah Soomaaliya kale ardaydu markay qalin jabinayaan projectiga ay ku qalin jabinayaan wala ardayda engineerku waxa toos uga eega yani ama lagu casuuma markay la soo bandhigay ama bandhiga u dhameysay la sameeyo shirkadaha Pakistan oo dhan baa lagu casuuma shirkad walba markaa qoladii ay khuseysay ama xiriir kala lahayd buu imanayaan ardaydii way eedayaan kii ay fikradiisa la dhacaan way maalgelinayaan waxaan garanayaa dhalinyar doorkii dhaweyd oo kale markay qalin jabinayeen saas oo kale ay u yimaadeen oo aan joogay oo bartii ay ku maalgeliyeen ilaa haddana mashaariicdoodii ay u socdaan mashaariic waaweyn markaa ay u noqdeen dabcan oo markaa maalgelin fiican helay dabcan saas oo kale la isku taageeraya oo markaa qaabka waxbarasho ay sameynayaan iyo qaabka dawladda iyo bulshada iyo dadku isugu xidhan waa qaab ka duwan markaa marka garbay mararka qaar u leeyihiin dadka mufakiriinta ah ama dadka aqoon-yahanka ah inay markaa iraadaan yani bulshada taageeraysa dawladna taageeraysa ma helno laakiin dunida marxalad ay soo martaa marxalad waxa jirtay yani dadka noocan ama heerkan gaadhayba aan la taageereyn marka mar walba ma aha inaad cid kale ka sugto inay ku taageerto laakiin mararka qaar waa inaad adigu sacrifice samaysaa yani inaad adigu bulshadaadii aad u hagar baxdaa wixii aad tari karta marka ama aad ku caawin karto marka waa inaad ku caawisaa waqti fiicanna marka aad gelisaa si marka yani cidda kaa dambaysa ay nolol wanaagsan oo qurux badan ay ugu sii noolaato mufakirka dhabta ah ama aqoon-yahanka dhabta ahina oo qofka noocaas haddaba hadda waxaa la joogaa waqtigii dabcan laga fikiri lahaa isla markaana aqoon-yahanada iyo dadka mufakiriinta ah aad uga fikiri lahaayeen mandiqadan ku noolahay iyo dabcan bulshadeena dhexdeedaba ah Soomaali dhexdeedaba ah inay aad uga fikiraan mashaakilka iyo dhibaatooyinka Soomaali ah haysta maxay tahay يعني برضه إن لقى فكره طبعا لقى فكره حل كي لجال لها لأنه قف كمفكر كأهل معها باحث جامعي يعني قف جامعة يعني كل شيء أو مركا بحث كوبان قرية معها لكن وحلا جرى بقى مركا بحثي سجن أو مركا منهجية منهجي مركا لقى وضع معهم حي يعني مد لجرنا يحلقوا كبلا ما يا مركا حلقوا كل بعضهم مد يعني لجرنا يو حبكي لو راعي لها طريقة اللي راعي لها وحي اللي أدري لها هذه اللي بتوين مشاكل أي معدن أنت مركا طريقة يو حلقة اللي جود حجلو يعني قاتل اللي وجود بالها iyo inta dhibaatooyin iman kara yani qaab yani sugan in marka yani loo sameeyo yani qaab wanaagsan marka loo fikro inaguna aad bay runtii uga sii baahanay laana waxa ku jirnaa marxalad yani cudurka ugu weyn ee maanta in haysta uu yahay marka qabyaaladin ay noqoto mid dhibaato fara badan ku haysa nidaamkii dawliga ahay marka aynu aasaasanay waxaana ursoonahay dabcan ama xaqiiq ah nidaamka qabiiliga haddii maanta siyaasadda lagu wado iyo qaabka maanta ay u taala haddii lagu wado in wax allaali wax ku dhismay haba yaraatay aan jirin laana qof kasta oo markaa ka baxsan nidaamka yani siyaasiga ah ee markaa jira nidaamka kale markaa u aragtay nidaam qabyaaladeed ama qabiil gaar ah markaa hadda xilka hayaan waxa uu ku fikirayaa sida kuwan aan waxba u qaban lahayn yani sidii kuwan xilka uga dhamaan lahaa iyagoo aan waxba qaban yani marka iyagu marka meesha imaadaana wixii ay markaa samayn karayaan ay samayn lahaayeen يعني dhibaato fara badan ma ka dhalanaysa dabcan waan dhamaanteen oo soo nahay in detail uma sii dilayo
يعني nidaamka qabiiliga hadday maanta ku dhaqanno in qaab markaa xun markaa inagu saameynaya على يا dadka qaar ama dadka qaar baa aad uga fikra oo yiraahda yani nidaamka qabiiligu maadaama dad Soomaaliya nahay kama gudbi karno waa in markaa sidiisa ay la noolaana طبعا wala noolaana yani ma diidanin nidaamka qabiiligi yani in xataa wax lagu soo doorto ma diidanin laakiin yani qaabka markaa wax ku soconayo iyo qaabka wax lagu maamulayo iyo qaabka in wax u arkano ayaa markaa meesha ka baxsan haddii maanta saddexdii nin isku xigay ama saddex wasiir hadii la magacaabo hadii la oranay saddexdaani buu isku reer yani qaab reereed laga fikirayo ka hor inta aan laga fikirin moota maxay qabanayaan maanta haddii ninka wasiirka ahi maanta ciddiisa uu yani shaqaaleysiiyo ciddiisa uu quudiyo ciddiisa markaa wax walba siiyo dabcan markaa laga fikiro laakiin haddii aynu ka fikirno ka waran ama la helo dad markaa yani dhammaan bulshadooda u siman cid walba markaa xaqooda siinaya cid walba waxay markaa rabaan ku taageeraya haddii markaa qaab noocaasa la helo ama bulsho noocaas ama dad noocaas oo madaxa haddii la helo ma laga maarmi karaya ama ma la iska dayn karaya nidaamka markaa qabiiliga ah haddii boqolkiiba boqol dadka markaa tusaalahaan madaxda ah oo dhan tusaale ka soo qaada haddii markaa hal reer yihiin tusaalahaan dhammaan reeraha kale oo dhan raalli ma ku noqonayaan markaa inay markaa ay yani u noqdaan shacabkii mutaabiciinta ay u noqdaan oo ma adeecayaan haddii qaabka ay wax u qaybinayaan hadday shaqo noqoto hadday wax walba noqoto qaab siman oo wanaagsan ay noqoto qof walba oo taga markaa xaqiisi toos uga soo heliyo hadday Soomaali nahay ifan hadday xataa saas ay dhacdo suurtagal ma aha oo ma yeelino yani laana wuxuu doonayaa xataa yaan waxba qabanay qof isaga ah qof reerkiisa ah inuu markaa meesha tago dabcan qadiyada noocaasna qadiyad markaa sugan oo markaa midba adag ku taagan yani dood adag oo qumana noqon mayso haddii markaa qofku uu leeyahay yani qofka maanta aniga qabiilkayga ahay kaliya waxaan doonayaa inuu magac ahaan kaliya inuu noqdo qof markaa bulshada yani xil u haya yani intaas kaliyaan ku qanaaco ku helaya ma noqonayso dood adag oo markaa yani midba adag ku taagan sababtu waxa weeyaan yani waxa la doonayaa wax la qabto marka wax ku qiimeeyana waa maxay waa aniga cid reerkayga ahi ma joogtaa meesha mise ma joogto laakiin kuma qiimeeyano bulshada wax ma loo qabtay aniga wax ma lay qabtay ifan mise waa wax inta ka duwan marka doodda aynu arkayna waxa weeyaan waa dood ka duwan weeyaan qaab kasta oo markaa qabiil ugu dhaqanno waa qaab bulshada markaa aanay raali ku wada noqon karin qaabka ay markaa xataa isku arkayso iyo yani qaabka isku fiirinaysa waa qaab ka duwan qaabka saxda bay noqonaysa taasoo markaa dhibaato fara badan markaa inay nagu haysa يعني waa mid kamid ah yani dhibaatooyinka marka in haysta ee marka ay ka dhaqaaqay karlaanay yani waxyaabo fara badan laga qaban kar laayay oo marka aad runtii u muhiim ah laana waxa la soonayaa tusaalahaan oo kale nidaamka qabiiliga yani tusaale yar kamid ah dawladda soonaysa meel wax ka qabta ama yani resource meel ku jira ka soo saara hanti meel ku jirta dabcan shidaalba tusaalahaan noqdo hadda ugu yaata shidaal tusaalahaan oo kale ka soo qaad qofkii meesha jooga wuxuu doonaya inuu ilaashado shidaalkaas in la soo saaro ma ogala haddii la soo saarayana inta ugu badan inuu soo qaato rabaa laana cidda dawladda joogta wuxuu arkaa reer gaala ayuu arkaa meesha uu ilaashanayna kama aha inuu marka isagu soo saarto oo awood wax ku soo saartana ma haysto kaliya wuxuu doonaya inuu dul fadhiyo hadduu ka dhintana ruuxiga uu ilaaliyo saasuu markaa loo dul fadhiyo ilaa inta qayb ka dhacay marka yani qaab ay ku horumari karno iyo qaab markaa sax ah midna ma aha runtii dabcan ana dadka aad uga soo horjeeda yani in xataa aragti kale la tijaabiyo ama xataa iyada la horumariyo dadka qaba ayaan markaa ku jira saadaradeed waa mid kamid ah dhibaatooyinka in haysta waana yani dhibaatooyinkaas iyo taas iyo qaar badan oo kamid ah oo waxyaabaha loo baahay markaa dadka mufakiriinta inay runtii aad uga fikiraan isla markaana markaa xalal iyo markaa qaab ay u soo saaraan way jiraan dad fara badan oo markaa yani ama centers xarumo ayaa jira aad uga fikira aragtiyo fara badan oo kala duwan soo jeediya tusaalahaan kale heritage haddaan soo qaato kale waxaa jirtay mar ay si fiican u diyaariyeen deegaanada Soomaaliya ay yani ka diyaariyeen qorsheyn aad u qurux badan oo wanaagsan oo markaa lagu horumari karayo hadday xoolihii noqoto hadday beerihii noqoto hadday dhinacii kalluumaysiga noqoto yani qorsheyn aad u qurux badan soo jeediyeen oo markaa wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya kale ay la kulmeen hatta madan la qabtay lagu wareejiyay laakiin ma la qabtay mise lama qaban waa dood ka duwan weeyaan xarumahaas mid bay leeyihiin yani cidda meesha isugu imaanaysa waa bulsho kooban weeyaan doodahaas cid kooban ma dhageysanaysa hatta doodahaas oo aad loo faafiyo oo aad loo dhageysta ma arko يعني لكن waxa loo baahay xarumahaas in bulshada soo dhex galaan oo marka xarumihii jaamacadaha yimaadaan oo dooda ka dhaliyaan oo ardayda ay dhageysato oo cidda wax la barayo waa jiilka soo kacaya in iyaga in badan loo soo jeesto oo iyaga in badan marka doodahan la furayo dhexdooda marka lagu furo iyaga marka qaar loo diro oo waxyaabaha qaar research loo diro oo ay ka soo jawaabaan doodaha iyaga marka xaggooda laga dhaliyo marka aad bay qurux badnaanaysaa waxaan ursoonahay nidaamka dawliga ah iyo nidaamka yani dadka aqoonyahanka hadii la isku xiro in markaa qaab qurux badan oo markaa wanaagsan ay noqonayso horumar fiicanna markaa uu ka dhalayo oo yani qaab kala duwan oo wanaagsan markaa ay u sameysmayso tusaalahaan kale haddaan soo qaato turkiga oo kale waxyaabuu sameeya wax kamid ah
يعني nidaamka dawliga iyo nidaamka yani jaamacaddu aad bay isugu xidhan haddii dawladdu doonaysa inay hawl iyo mashaariic wax qabato bulshada ayaa wax lagu soo wareejinaya bulshada oo dabcan marka ay batalaysa jaamacadii ay matalayaan tusaale mashruuc dhaam ah haddii la samaynayo oo dawladdu sileeda sameeya haddii hal jaamacado ka mid ah jaamacadaha injineerka aadka ugu fiican loo geeyo la yiraahdo qabta maxaa ka dhalanaya waxa dhalanaysa ama faa'iidooyinka yani laga heli lahaa maxaa ka mid ah horta fund bay jaamacadda heli lahayd magaceedii iyo taytalkeediina kor buu u kici lahaa oo caalamkii wax la qaybsanay laana dhaam dhanbay ay mashruuciisii ay dhamayso gacan ka geysatay ardaydii jaamacadda dhiganaysay waxay helayaan tababar xirfad shaqo wax badan bay helayaan waxa la helayaa in jaamacadihii iyo markaa dawladdii ay isku xidhmaan oo markaa wax fiican meesha ka soo baxo in dad lagu kalsoo yahay oo bulshadii meesha deganeed ah oo dadkii meesha deganaa ah in gacanta loo geliyo mashruucoodii kalsooni baa la dareemaya wax qurux badan oo fiican oo wanaagsan baa meesha ka soo baxaya سادرد waa muhiim in mashaariicda dawladda iyo markaa la isku xiro markaa yani dadka aqoonyahanka ah goobaha iyo xarumaha ay joogaan la isku xiro dad markaa sugan oo gaar ah oo dawladda markaa u shaqeeyaan la sameeyo yani wasaaradaha kala duwan ee markaa shaqooyinka fara badan kala duwan haya in lagu xiro departmentyada kala duwan ee markaa jaamacadaha lagu xiro marka hore laakiin waa in jaamacadaha laftirkooda horumariyo oo manaahijtoodu ay noqdaan qaar ka jawaabi karaya doodaha markaa ay soo jeedin karayaan dawladdu markaa xaggan Soomaaliland oo kale waxaan aad u xasuustaa jaamacadda Dulis qaybta veterinary oo kale wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale marka xoolaha qaar loo geeyo la yiraahdo xagga daweynta oo kale loogu geeyo jaamacadda dib ugu soo dari jireen qaabka ugu soo darayaan ma aha qaab yani ay doonayaan xiriir fiican inuu kala dhaxeeyo dabcan runta in la sheegaa aad u qurux badan laakiin waa inaanay hayn yani qalabkii iyo yani nidaamkii lagu daweyn lahaa ama yani lagu la tacaali lahaa neefkaas marka loo keenay inaanay hayn awadeed bay ugu soo diraan jaamacadda markaa daaweyn jirtay oo marka adeeg fiican bixin jirtay laakiin waxa fiican oo aad u wanaagsan dabcan in xiriir wanaagsan laga dhaxaysiyo jaamacadaha iyo markaa yani nidaamka dawliga ah oo si fiican isku dhaxgeliyo waxaasoo dhan waxayna geliyay bulsho horumar ma gaadho ilaa ay helaan dad markaa aqoonyahan oo mufakiriin ay helaan oo markaa gacan ka geysta oo markaa wax dhaliya aragtiya markaa dhaliya dhibaatooyinka markaa bulshada haystana xaliya laana dawladda iyo dadka dawladda haysta waa fulin weeyaan waa dad wax fulinaya oo kaliya weeyaan laakiin cidda wax karinaysa waa dadka markaa yani bulshada hormuudka iyo haldoorka u ah dadkaasina soo bixi maayaan ilaa la helo markaa nidaam waxbarasho oo sugan oo bulshada taageeraya oo bulshada soo saaraya dad mufakiriin ah soo saaray ilaa la helo taasna suurtagali maysa ilaa nidaamka aan wax u akhrisano iyo nidaam akhristeenu ilaa uu noqdo nidaam markaa sugan oo fiican noqdo tusaale ahaan haddii 10 qof oo kaliya ku fadhiisataan oo qaab wanaagsan oo qiraa'o manhajiya sugan aad samaysataan waxaad runtii aad dareemaysaan ama yani dhinacyo fara badan oo kala duwan wax ka akhrisaan waxaad dareemaysaan dhibaatooyinka maanta ay ku noolahay yani wax badan ba afaaq badan baa idin baxasa يعني نظامك يكون والله يقابك يكون والله يو يعني نورش أنكو جن دريمسا كعالم مسلمي سجود مع عالم إسلامي سجود كصومالي سجارة بهذا أما قارد يكون والله يوم مركا يعني سي كير بحثون كدو الله أهله مركا واحد أكنا إن ميلا بدن أنكو جدو طوضها صوف ربنا يو حيابها صولنا وحلو بهاي يعني طوضها سي عرفتيها صولنا وحلو بهاي اللي جت جوابه ويعني مركا حلو كانوا هذه ما ضدك اللي هو الري أي وحول سميين innaga dadka bulshada maanta ama dhalinyarta maanta jirtaan waxa loo baahay inay gacan ka geystaan wixii marka ay sameyn kareen ay sameeyaan haddii tan waxa dhacaysa in marka qaabkan caadiga loo noolaado kadibna marka sida lagu socdo way waxa aad imka u bilaamay laftirkeedu taariikhda baa dib u cusboonaaday waxyaabo fara badan baa dib u cusboonaaday qof kastoo dhalinyarada aragtana ama wadanka dibadiisa joogana wuxuu doonayaa inuu meel kale ka sii aado qof doonaya inuu ku noqdo oo yani inuu tarin ma jirto qof kasta wuxuu doonaya inuu meel kale ka sii aado يعني حتى هانتي قفك وهي بلشديس يدتيس إنه وحترو أيام ماشى كبحضي دباتو فربضان أو آد فربضان بينو سواجهان هدي مركا قابك وحلو وضو إيا قابك إنه فترنا إيا قابك وحوضنا إيا قابك وحبر شدان يعني وح كبدل وينو وحد عدون إن قف كستو اللي يرى مركا وما توضن كإن تكترو عد ماشى صهدان اللواي دونو قابك إنه مات يعني كنا والله هنا بقول سنة طبعا يمساو كنا والله دونو هدي نظام كقبالجا هذا النظام كوحبرشة يهديها وحيابها فربضان دباتوين كفربضان تشيل هدي وحمرتها لقى بدل وايد ما دون موضوع عين سيديريو وحيابها يقول لي حكم إذا يعني مقال شعب عبد الرحمن بشير ليه هي الأخ استيو يعني حتى امتحانات يو أد لو جرجريو أو طبعا بلا مية يو دي جامعة هي ولا صوبة حي أو بوجا لقوريو أو ريسيرش لقوريو هذا نوع بدلي أنا تشيل يعني أركتيس بدل سيو واحد بدلي أنا تشيل في شيء أقوياء كذا استباب بير كمالين وحصمانية لجابية قلت لي يعني ثبات هاي نقول سرو ماها يعني أقوياء نمدو أما يعني قف أقوياء كي يعني مرتبط إنك جار الأوراني وحول وصحية بقولك بقول صحية وقلدمي كريا ويعني بالآدويا يعني بالآدو كنا خلق يعني ودبري هاي طبعا وقلدمي كريا وإلهي سبحانه وتعالى وشهري يعني بالآدو وخلطة يعني قف خلطمي كريا أما يعني عد خلطمي كرتوية
صدرت waa muhiim in dad noocaas oo mufakiriin ah ama dadkan ku hadlaya in la helo oo markaa bulshada wax badan soo kordhiya intaas muuqaalku soo gabagabeynaya waxaan jeclaan lahaa inaad xagga commentiga nagu reebtid saddex yani dhibaato oo markaa bulshada Soomaaliyeed haysta iyo markaa saddexdood xal inaad markaa aad nagu reebto oo markaa noo soo gudbiso taasoo markaa isu geeyay ama xataa aragtidaas soo jeedisa ayaaba wax laga yaabaa qof akhrista in markaa maskaxdiisa iyo aragtidiisa ay wax badan markaa ay ka bedelaan marka aad u maasantahay dhammaantiin waxaan kaga tagayaa nabadgelyo iyo kulanti dambe xiiso leh